magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxa ay leedahay taariikh dheer, laakiin waxaan la ogeyn inay lahaan jirtay jid xadiid ah oo tareen ku maro. Xamar waxay lahayd station maxadad tareen aad u weyn oo lagu dayactiro tareenka si hawlaha la xiriira gaadiidka habsami ugu socdaan. waqtigii faashisimka dawladda Talyaaniga waxaa damac weyn ka galay inay dad Talyaani ah dejiso dhulbeereedka dooxada Shabeelle oo ka soo bilaabma Jowhar ilaa Afgooye iyo Janaale. Jowhar oo markaas magaceeda la oran jiray Villaggio Abruzzi waxaa deganaa ninkii loogu magac daray ee Talyaaniga ahaa oo la oran jiray Luigi Amedio oo sitay magaca Duca di Abruzzi. si gaadiidka iyo isgaarsiintu u hagaagto ayaa waxay Talyaanigii faashista ahaa 1914 ay ka bilaabeen inay dhisaan jid tareen oo isku xira Muqdisho, Afgooye iyo Webi Shabeelle raaca dhinaca waqooyi ahaan ilaa laga gaaro Jowhar oo ay markaa u yaqaaneen magaca Villaggio Abruzzi. jidka tareenkaas ayaa dhererkiisu wuxuu ahaa 113 kilomitir. tareenku markuu Muqdisho ka baxo wuxuu aadi jiray dhinaca galbeed ilaa uu gaaro Afgooye, ka gadaal ayuu raaci jiray Webiga Shabeelle meel u muuqata oo dhul beereedka ah. dhismaha jidkaas tareenku wuxuu dhamaaday sanadkii 1927. tareenkaas waxaa furfurtay oo qaatay Ingiriiska markii uu Talyaaniga ka adkaaday sanadkii 1941 dagaalkii labaad ee adduunyada xilligii uu socday. sidaas ayaa tareenkaas taariikhdiisii loo ilaaway. waxaa xusid mudan in tareenkaasi uu mari jiray galbeedka baadiyaha magaalada Balcad. tareenka la adeegsan jiray marka hore wuxuu ahaa nooca steam engine ama ku shaqeeya uumiga biyaha. wuxuu shaqeeyay ilaa 1941 markii Soomaaliya Ingiriiska uu qabsaday oo Talyaaniga geeska Afrika looga adkaaday ayaa Ingiriiska waxa ay furfureen jidkii xadiidka ahaa waxayna u qaateen wadamo kale si ay uga faa'iideystaan mashaariic kale ay ka wadeen wadamo kale.